السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janaalka Albashiir oo ah janaal waxbarasho waxaan ku jirnay casharadeen imtixaanahay oo aan ku baranaynay barnaamijka MS Word 2016 insha Allah tacaala casharkeena waxaan ku baran doonaa sida MS Word-ka qoraalka loo soo geliyo qoraal loogu qoro iyo sida qoraalkaas loo koobiyeeyo sida meesha uu yaalo looga qaado iyo sida qoraalka u koobisan meel loo dhigo waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto videogana like noo saarto haddii aad waxbarashada jeceshahay si aad noogu soo dhiirigeliso inaan dadka Soomaaliyeed kaa qabtirno teknolojiyadda iyo luqadda Englishka aad u mahadsan tahay waxaan rabnaa inaan soo kicino MS Word meesha waxaan ku qoraynaa Word aan ku qoraynaa almost waaba kanaa markuu noo soo kaco waxaan ka dooranaynaa blank document markaad blank document ka doorano waxaa noo soo bixi doonta xaggan wajahadan baa noo soo bixi doonta marka tusaale waxaan rabaa inaan meeshan ku qoro inaan wax ku qoraan rabaa text inaan ku qoro marka hadda waxaan isaga qoraa tusaale waxaan leeyahay assalaamu calaykum dhammaan asxaabta casharkan waxaan ku baranaynaa sida qoraal loo koobi gareeyo ama cut ama paste marka intaas isaga soo gaabsanaynaa hadda wax badan anaga ma qorayno intaas isaga soo gaabsanaynaa muhiimaddu waxaa weeye inaad ogaatid sida wordka wax loogu qoro marka saan baa loo soo kiciyaa kadibna halkaas saasaa loogu qoraa sida loo edit gareeyo waxaa soo gaari doonaa waxaan rabnaa casharkan inaan ku barano qayb la yidhahdo clipboard oo ay ku jiraan copy paste iyo waxa la yidhaahdo cut saddexdaas casharkan ku saabsan yahay marka koowaad inta aadan wax copy dhihin qoraalka aad rabtid markasta MS Word-ka inaad shaqo ka qabatid waxa la yidhaahdo hard ama highlight inaad saarto weye saan baa hadda highlight u saaraynaa highlight waxaa ku saari kartaa inaad meesha ugu dambeyda aad qabato kabacdina keyboardkaada shift iyo falaarta aad isla qabato ugu dambeysa hoos aad u socoto sidoo kale waxaad isticmaali kartaa keyboardka isticmaali kartaa muuska isticmaali kartaa kiligta bidix la qaban kartaa saasaa ugu jiidi kartaa inta markaad sameydo waxaad tegeysaa meel ku qoran tahay clipboard xaggaana kadibna waxaad ka dooran doontaa copy qoraalka sadda wuu ii koobiyeysan yahay waxaan rabaa inaan meel cusub dhigo kadibna enter aan leeyahay cancerka boodboodaya meel cusub oo imaanaya kadibna waxaan leeyahay control iyo v aan isla qaban doonaa ama waxaan samayn doonaa right click aan leeyahay waxaan leeyahay paste hadda marka paste ima soo qorayo control v baan iska taabanaya dhib male waxaan rabaa hadda inaan text kale highlight saaro text kale markaan highlight saaro waxaan rabaa inaan iraahdo cut inaan dhaho rabaa meesha dhan ka jaro kadibna meesha maqaska ku qoran tahay saddexdan isku ag taalo waa paste iyo copy iyo cut marka cut baan ka dooranayaa qoraalka dhan meesha wuu ka tirmay ama kuma yaalo qoraalkaas si aan meesha u dhigo ama meel kale aan u dhigo tusaale kale hoosta hadda u socday xaggas kale aan dhigo xaggaan aan tagaa waxaan dooran karaa paste ama keyboardka waxaan isla qaban karaa control v labaduba way ii bannaan tahay haddayd hadda control v aan tusay tan oo kale hadda aan taabano paste oo kale aan taabano laba mar uu kusoo laabtay weliba paste ayuu dhexmay hal xabaa nagu filan sidaas ayaa qoraal loo paste gareeyaa ama loo cut gareeyaa ama loo copy gareeyaa casharkeena wuxuu ku saabsanahay marka sida qoraalka loo copy gareeyo sida cut loo yiraahdo iyo sida paste loo yiraahdo casharkeena soo socda waxaan ku baran doonaa farta sida wax looga bedelo intaan casharkan cashar lamida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu